Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Wuxuu dhashay Frederick Diloka sanadkii 1948 wuxuuna ku dhashay xaafad ka tirsan magaalada New York ee dalweynaha Mareykanka. Labadiisa waalid waxay asal ahaan ka soo jeedaan dalka Talyaaniga, halkaas ayayna ka soo haajireen. Markii uu gaaray Frederick 10 sano ayuu bilaabay ganacsi asaga gaar u ah oo ah aruurinta quraaradaha, nadiifintooda iyo dib u iibintooda. Halkii qarshad wuxuu gadi jiray 2 senti. wuxuuna sanadkii 1957 u wareegay iibinta iyo wareejinta joornaalka, wuxuuna maalintii gadi jiray 400 oo xabo oo joornaal ah. Sanado kadib Frederick wuxuu ka qalin jebiyey mid ka mid ah dugsiga sare ee magaalada New York. Markii uu ka qalin jebiyey Frederick dugsiga sare, riyadiisu waxay ahayd in uu ku biiro jaamacadda kana mid noqdo ardayda kulliyadda caafimaadka. Laakiin Frederick riyadiisii waa u suuragali waysay, waayo Frederick wuxuu ka dhashay qoys aad faqiir u ah oo aanan ka bixi karin lacagta jaamacadda iyo qarashaadka kale ee u baahan yahay ardayga barta cilmiga caafimaadka. Markii uu awoodi waayay inuu ka mid noqdo ardayda caafimaadka baranaysa, wuxuu go'aansaday inuu ka shaqo bilaabo mid ka mid ah dukaamada lagu iibiyo aaladaha iyo guud ahaan mashiinada. Saacadiina wuxuu ku shaqayn jiray wax ka yar $2. Frederick waa u suuragali waysay inuu helo lacag baahidiisa daboosha. Maalin Axad ah sanadkii 1965 ayaa qoyska Frederick waxaa booqasho ugu yimid Dr. Peter Bach oo ah nin saynisyahan ah, dhanka kalena saaxiib la ah qoyska Frederick. Frederick oo markaas 17 sano jir ah ayaa si gaar ah Peter Bach ula sheekaystay, wuxuuna ka dalbaday inuu ku taageero lacag si uu isaga bixiyo deymaha lagu leeyahay, sidoo kalena waxbarashadiisa uu sii dhammaystirto. Peter Bach ayaa sheekada dhinac kale u raray oo wuxuu ugu sheekayey Frederick nin dhalinyaro ah oo sameeyey sanado ka hor maqaayad laga cunteeyo. dhowr sano kadibna wuxuu helay faa'iido badan. Haddaba ka waran haddaan ku deymiyo $1 oo ninkaasi aad ku dayatid. Frederick ayaa ku qancay inuu furto maqaayad lagu kariyo cuntada fudud, wuxuuna Peter Bach ka dansaday $1. Kadibna wuxuu ka haystay gaari ay lahayd hooyadii, wuxuuna raadin u galay aag ku habboon in laga furo maqaayad. wuxuuna helay dhismo ku fiican in laga furo maqaayad, isla markiiba wuxuu la heshiiyey milkiilihii iska lahaa guriga. kadibna wuxuu soo gaday alaabo hore ay u soo isticmaaleen maqaayado kale. sababta uu sidaas u sameeyey ayaa ahayd in uu beeqaamiyo qarashaadka uu haysto. dhan kale wuxuu soo iibsaday alaabadaha aasaasiga u ah maqaayad. sidoo kale Frederick wuxuu iska bixi waayey $25 oo iska lahaa qareenka mas'uulka ka ah heshiisyada. sidaa daraaddeed Frederick wuxuu shaqo galay isagoo aan haysanin wax heshiis ah. inkastoo magaca mashruuc ku wanaagsan yahay in la sii diyaariyey goor hore, haddana Frederick uma suuro gelin arrinkaasi. oo markii uu kiriyey guriga maqaayadda islamarkaana uu soo iibiyey alaabadihii, ayuu is arkay isagoo magac la'aan ah. kadibna intuu meel fariistay ayuu fakeray. wax yar kadibna waxaa ku soo dhacay 2 magac oo kale ah Butter iyo Submarines. talow magacyadani maxay micno ah way xambaarsan yihiin, waayo marka aad samaynayso mashruuc waa in aad u bixisaa magac yar oo micno leh. haddaba Frederick waxaa maalgeliyey Butter. sidaa daraaddeed Frederick waxaa muhiim u ah magaca Butter. maqaayaddana wuxuu ugu magac daray Butter Submarines. haddaba Butter fahanayee wuxuu ka wadaa magaca Submarines. Submarines waa kelmad Ingiriis ah oo macnaheedu yahay gujis. Frederick inkastoo yahay nin Maraykan ah, haddana ma hilmaansana dalkiisa Talyaaniga. haddaba shacabka Talyaaniga ayaa rootiga ku magacaaba Submarines, waayo rootiga muuqaal ahaan wuxuu u eg yahay gujiska badda gunteeda quusa. sidaa daraaddeed ayuu Frederick ku doortay Butter Submarines. dhan kale waxa uu dadweynaha ka iibiyey ayaa ah sandwich ama rooti qudaar iyo macmacaan kala dhex geliyey. macaamiishii maqaayadda ayaa maalmihii ugu horreeyey ku dhawaaqayay magaca ka kooban 2 kelmadood. aakhirkii macaamiishii waxay ku beddeleen magaca maqaayadda Submarines, taa oo Frederick ku qasabtay inuu boorarka maqaayadda ku qoro Subway. 28 bishii Agoosto sanadkii 1965 ayuu Frederick furay maqaayaddii ugu horreysay. isla maalintaasna wuxuu gaday 312 xabo oo sandwich ah, wuxuuna macaamiisha u raaciyey sharaab aasid leh oo bilaash ah. waxaa in la sheega mudan in uu Frederick keliya ka shaqaynayay maqaayadda. asaga ayaa sandwichka diyaarinayey oo macaamiishana siinayey, isla markaana ka qaadayay lacagta. wuxuuna halkii sandwich iibiyey $1. marka ay ku badan shaqada waxaa caawin jiray hooyadii. Frederick intuu gaari qaato ayuu jari jiray maalin kasta 160 kiiloomitir si uu u soo helo qudaar bisil oo nadiif ah. maalmo kadib Frederick waxaa soo wajahay hoos u dhac weyn. alaabtii duulimadii ku soo iibiyey way ka burburtay, taa oo Frederick ku qasabtay inuu xiro maqaayadda. maalgelii Peter Bach ayaa deymiyey lacag $1 ah. Frederick mar labaad Frederick ayaa ka furay maqaayad aag kale oo cusub. haddana mar labaad ayuu ku dhacay khasaare ka weyntii hore.
Frederick ayaa inta meel cidla fariistay ka fikiray wadada looga bixi karo mushkiladani, wuxuuna talo ugu tagay Baak oo ah maalgeliyaha mashruuca Frederick. waxayna isku waafaqeen in farac saddexaad laga furo meel munaasib ku ah in laga furo maqaayad si ay ugu soo kabtaan labadii khasaare ee hore. wayna ku guuleysteen qorshahoodii oo faraca saddexaad ee maqaayadda waxaa laga furay meel wanaagsan. maalmo kadib waxay ka soo kabteen khasaarooyinkii hore, waxayna heleen faa'iido badan. isla qorshihii ay ku fureen faraca saddexaad ayay ku dhaqmeen, wayna qaateen ilaa 10 sano kadib ayay gaartay faracyada maqaayadda Subway 32 farac. Frederick ayaa markaan la imaaday xeelad cusub si uu u kasbado isla markaana uu helo kalsoonida macaamiisha, sidoo kalena uu baabi'iyo sawirka xun ee laga aaminsan yahay ama laga haysto maqaayadaha sameeya cuntada fudud. Frederick ayaa dhex dhigay muraayad shaqaalihiisa iyo macaamiishiisa si dadka wax dalbanaya ula socdaan isla markaana indhahooda ugu arkaan. sidoo kale Frederick wuxuu hoos u dhigay saliidda iyo dufinka badan ee lagu daro sandwichka. Frederick ayaa bilaabay inuu isku fidiyo gudaha dalkiisa Mareykanka. sanadkii 1978 waxay gaartay faracyada maqaayadda Subway 100 farac. sanadkii 1988 faracyada maqaayadda waxay kor u dhaafeen 1000 farac. sidoo kale sanadkii 1990 Subway faracyadeeda waxay gaareen 5000 oo farac. sanadkii 2002 Subway waxay dhaaftay oo gudaha Mareykanka kaga adkaatay isla markaana ka tiro badatay maqaayadda kale caanka ah ee lagu magacaabo McDonald. sidaas ayay ku socotay Subway ilaa ay gaartay tirada faracyada 41,000 oo farac, isla markaana ka furan 100 wadan oo ku kala yaala dunida dacaladeeda. waxay Subway sanadkiiba faa'iido $10 bilyan oo dollar. halka ayuu maraya dadaalkii uu sameeyay cunug yaraa ee 17 sano jirka ahaa ee Frederick. Frederick ayaa qayb ka mid ah faracyada maqaayadiisa ee lagu kariyo cuntooyinka fudud ee caafimaadka u wanaagsan, isla markaana miisaanka la isaga dhimo u helay suuq weyn oo faa'iido badan leh. kadib markii uu maqaayadda ku soo xirmay arday wax ka barta mid ka mid ah jaamacadaha Mareykanka oo lagu magacaabo Jared Foldel, oo ka cabanaya cayil aad u daran isla markaana isku dayay dhowr mar in uu iska dhimo buurnida xad dhaafka ah, laakiin ku fashilmay. ayaa wuxuu muddo sanad ah ka cunteynayay oo maalin kasta 2 xabbo oo sandwich ah ka cuniyay mid ka mid ah faracyada maqaayadda Subway ee lagu kariyo sandwichka u fiican caafimaadka. Jared ayaa muddo sanad ah kadib wuxuu miisaankii jirkiisa lumiyay 112 kilogram. kadibna wuxuu bilaabay inuu ka sheekeeyo guulihii uu ka gaaray miisaan iska dhimista iyo sida sandwichka Subway qayb uu qaatay inuu jirkiisa ka dhaco 112 kilogram oo culays ah. aakhirkii Jared wuxuu wareysi siiyay warbaahinta, kadibna maqaayadda Subway waxa ku soo yaacay macaamiil badan oo buurbuuran isla markaana doonay in ay miisaanka iska dhimaan oo ay ka faa'iideystaan sandwichka Subway. gabagabadii Frederick wuxuu dhintay sanadkii 2015